بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى لكان سوق رئيسة. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن هدي هبين دين تاي صباح وناكسن هدي صباح دين تاي قلب وناكسن عصر وناكسن اللي يدا دونك وكلا دوان. أنا waxaan ku suganahay hadda magaalada Burco saacaduna imika waxa ay tilmaamaysaa 12 habeenimo iyo 2 daqiiqo. cinwaanka aan ku qoray caawa halkan aan doonayay inala wadaagtaan waxa weeye hadhowtana isagoo duuban aad daawan doontaan insha Allah, ama aad imikana aad si toos ah u daawanaysaan. waxa weeye xiriirkayga dhabta ah ugu horeeya Facebook ayaan cinwaan uga dhigay, laakiin insha Allah xiriirkayga kalena insha Allah halkan ayaan caawa ku iftiimin doonaa biidnillahi alkariim. yani waxaana sabab u ah inaan xiriirka halkan ka sheego Facebookayga dhabta ah, Facebookyo cusub oo soo baxay oo aan anagu lahayn oo magacayga ku qoran iyo sawirkayga oo la sheegayo inuu Cabdimalik Muuse Coldoon leeyahay. marka arrinkaasaan doonaya caawa idiin bayaamiyo insha Allah. adayaan ku mahadcelinayaa soo gelista aad soo gasheen iyo inaad ila socotaan. jazakum Allah khayr. dadkaanu iska baranay warbaahinta bedeshay warbaahintii hore u jirtay, warbaahintii caadiga ahayd waxa weeye waa baraha ay bulshada ku xidhiidhaan. intii aanu iska baranay ayaan doonayaa inaan u bayaamiyo Facebooka dhabta ah aan leeyahay Cabdimalik Muuse Coldoon. dad badan Facebook iminka iga daawanayaan ayaa igu ogaayeen kan iminka igu daawanayaan, laakiin waxaa soo baxay kuwa aan anigu lahayn oo magacayga ku qoran. insha Allah waxa weeye taas arrimahaasaan u imin caawa inaan idin la wadaago arrimaha ku saabsan. ugu horreyn dadka waxaan u sheegayaa inay fududahay in qofka magaciisa lagu furan karo Facebook, email, wax kasta oo yani internetka yani loo adeegsado, magacyada loo adeegsado meelaha la gelinayo baraha ay bulshada ku xiriiraan. website ayaa lagu furi karaa Cabdimalik Muuse Coldoon dadka aanan lahayn. marka waxaan doonayaa horta marka hore dadku inaynu halka qodobka aynu isla fahanno in qof kasta la adeegsan karo magaciisa. haddii uu ka soo horbaxo qof aad taqaanay hubso oo lagu adeegsanayo baraha ay bulshada ku xiriirdo, hubso. siyaabo badan oo lagu hubsado ayaa jira adigoo aan go'aan qaadan, adigoo aan rumaysan qofka hubi marka ugu horeysa. marka insha Allah waxaan ka codsanayaa dadka ayaan wada xiriirno insha Allah inay siyaabo kala duwan ay tahay inay u hubsadaan meelaha ay ku qoran tahay magacay ku qoran tahay. maanta anuba waxaan iska hadlaya Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon iyo Facebookiisa anuba iska hadlaya. marka arrinka aan live-ka u soo galay ama tooska aan u soo galay mubaashirka adimanka aan hadlayo idinkuna aad la socotaan waxa weeye waa arrinka ugu fudud ugu cad lagu ogaan karo qofkan inuu Facebook leeyahay. markuu qofku soo galo toos yani sidan aan iminka idila hadlayo live idan waxa weeye Cabdimalik Muuse Coldoon. Cabdimalik Muuse Coldoon sama Cabdimalik Muuse Coldoon marka micnihii kanaan leeyahay. marka saa ula socda kuwa kale ee soo baxay ee magacyada kala duwan leh iyaguna waxa weeye haddii Cabdimalik Muuse Coldoon uu leeyahay ha soo galaan live, ha soo galaan mubaashir toos, ha u soo galaan oo ha hadlaan oo ha yidhahdaan waxa weeye waa keen. runtii waxa weeye waxaan arkayay labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaan arkayay Facebookyo
cabdimalik muuse coldoon ku qoran yahay, kuwa shaksiya oo profileka iyo kuwa beja bog ah. marka waxaan arkaya dad badan oo muxuu ila soo xiriiraya oo leh waxa weeye waxaanu aragnay Facebook kalaad samaysatay waxa weeye nagu darsatay iyo dad baa qof baa igu soo darsaday iyo magacaaga. marka waxaan sheegayaa inaan anigu magaca lahayn, dadka idinku darsanaya safxaadka shakhsiga inaan anigu lahayn. aniga ku darsiga inaan cid ku darsado yani inaan ku qiyaasi karo 4 sano ka hor ayaa igu dambeysay, sababtoo ah waxa weeye 4 sano ka hor ayuu iga buuxsamay 5,000 taanay ka badnayn, laakiin waxa weeye qiyaas 4 sanadood ka hor ayaa iga buuxsamay inaan wax ku darsado. marka dad badan baa muxuu ahaay magaca cabdimalik muuse coldoon imika lagu darsanaya qofka oranaya waxa weeye cabdimalik baan ahaay waxa weeye waa kan page-kaygii yani saasuu ayuu oranaya. marka ku darsigaas aniga maaha, haddii laydinku soo darsaday imikaba aniga maaha, ku darsigaa laydinku soo darsaday aniga maaha. ku darsigaasi waxa weeye dad kale oo wax kale maagan oo niyadoodu xun tahay ayaa idinku soo darsaday. marka waxa weeye niyad xun bay yani muxuu ahaay waxbay maleegayaan, waxbay soo wadaan, waanay bilaabeenba. haddaan idila wadaago waxyaabihii cajiibka ahaa muxuu ahaay caawa igu soo dedejiyeen tooskan soo galo waxaa ka mid ah waxaa ii soo dhacay email baa ii soo dhacay barid electroni ayaa igu soo dhacay emailkayga. marka maxaa ku qornaa emailkaas? emailka waxaa ku qornaa qof baa isku dayay waraaqdii muxuu halkan ay igu qoran tahay, aan halkan ka galo waxa weeye qof baa wuxuu igu yidhi cabdimalik qof baa isku dayay in uu furo facebookaga ama passwordka bedelo passwordka bedelo yarsuga sidii u qornayd baan muxuu idin la wadaagay kastoo carabi aniga igu soo dhacday. وطن waxay waraaq bay soo dhacday ku qoran tahay Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. yani طبعا emailkayga maadaama aan ka dhigtay emailadeeda Facebook waxyaabaha fariimaha la soo dirayo inay carabi noqoto alxamdulillah. qofka markuu hindhiso muxuu yidhahdaa? su-aasha ma xasuutaan? su-aasha barnaamijka su-aalaha aan dadka weydiinay, qofka marka uu hindhiso muxuu yidhahdaa? alxamdulillah ayuu yidhahdaa. dee ka ku ag jooga muxuu ku odhanayaa? yarxamuka allah. adiguna maxaad ku odhanaysaa, ugu celinaysaa? qofkii hindhisow waxaad ugu celinaysaa yahdiikum allah wayaslux baalakum. marka su-aalaha waxyaabaha badan oo qosol ayaa dhacay, lakiin akhirkii cid baa ka jawaabtaa baa marintii masali. marka waa su-aalaha aadka loo weydiiyo qofka markuu hindhiso maxaa yidhahdaa, aadka lee weydiiyo bay dadku ay weydiiyaan. qofka markuu hindhiso muxuu yidhahdaa? iyo ninkii odayga ahaa ee comediga ahaa ee aan weydiinay su-aashii ahayd nebi aadan weedhi ugu horreysay muxuu yidhi? marka barnaamijka su-aalaha barnaamijka wuu ballaadhnaa, yani muhayn barnaamij intaas qura muhayn ninkaa qura muhayn, lakin dad badan been intaasaa gaar in badan dadku ay soo goosteen, waana qosol badneed xaqiiqatan. yani dheelleel diimeedna mahayn, lakin haddana ninku markaan weydiinay maxaa nebi aadan calayhi salaam weedhi ugu horreysay ereyga ugu horreeyay u yidhi aabow. markaasaa waxaan ku yidhi aabbo muu lahayn? markaasuu yidhi haddaa hooyay. marka aniguna waxaan xijin kari waayay qosolkii aan markii hore qarsanayay, marka aad baan u qoslay. basaan ku yidhi hooyo muu lahayn? markaasuu oo haddaa ninkaasi habeena ka wanaagsanaya. marka ninkaa laftiisu wuxuu joogaa, ninkaas jawaabaha bixiya wuxuu joogaa burco waxa weeye waa reer yani reer burco waa comedia, waa gebigoodaba waa comedian, wadadooda qosola weeye oo noloshooda wada yani muxuu ahay iska tahay yani aan jiljilisayna qosol dabiiciya iska yaryarba lahaynba.
marka haddaan mawduuca usoo noqdo hindhisaadan hindhisay baan maxaa ku xasuustay laakiin haddaan usoo noqdo arrinkan runtii emailkan ii soo dhacay ayaa waxa uu leeyahay marxaban عبد الملك طلب شخص ما مؤخرا إعادة تعيين كلمة السر فيسبوك الخاصة بك انقر هنا لتغيير كلمة السر بدلا من ذلك يمكنك إدخال رمز إعادة تعيين كلمة السر سو رمز جنسي مركز هذا صغير لم تطلب هذا التغيير إذا كنت لم تطلب كلمة سر جديدة أخبرنا بذلك على الفور وأنا أخبرته مركز وحوي وحوي عبد الملك سودو أن شخص بدل باضي إنه دب وهابين أما إنه دب مجعابه وسميه باسورد كلمة سر كلمة مرور إنه سميه إرجع لجوجل يلقوا مري باسورد إنه سميه فيسبوك كسميه قف با اسكودي يقول هاي مركا هل كان بيقول تابو سادو بدشين ما تابن مركا سامع هوي ما تابن ويقول ما تابن برتاسي بدل من ذلك يمكنك إدخال رمز إعادة تعيين كلمة السر هدي كلاو ليسين كرتا بين كان بيقولي سياد أسوع رسيد باسورد كمر لبعض وسميسي مر لبعض أدو سميسي باسورد عصب مركز هذا آخر كي يقول أدو ما ضلبن اسبدل كان ما ضلبن مركز سو لبرعي إذا كنت لم تطلب كلمة السر جديدة هدي أنا أري أما باسورد عصب أنا ضلبن نوشك إمك تقدر نوشك أنا ونا تقدر بنوشك مركز وحوي صاحب يال فيسبوك ويركاس وحوي وكيو قدام بيجي اللي doonayay inaan halkan live ka soo galin oo aan dadka kala hadlin oo loo maleeyo marka la wareego yani wax la doono عبد الملك lagu matalayo lagu hadlo aniguna mudday qaadanaysaa inaan muxuu ahaay sahlo aan idin xaqiijiyo inaan Facebook-gayga la jabsaday sida laakiin dadkaas sameynayaan oo idin ka sheekeynaya qaab kala duwan ay sameeyaan dadkaasi waxa weey waa dad yani muxuu ahaay fashilmay dagaal bay wadeen dagaalkiina way ku fashilmeen dhinacyo kala duwan bay soo qaadeen yani waxa weeye dagaalkii jabaanka ay ugu hooseeyay fulinimadu ku jirtay wuxuu noqday in Facebook-ga inay magacayga una adeegsadaan oo Facebook-ga jabsadaan oo jubana majmuuca min al-jubana yani muxuu ahaay wax kasta isku dayay yani waxa weeye يعني runtii idin lama wadaago mawaadiic badan oo muxuu ahaay mar kasta igu dhaca yani muxuu ahaay waxa weeye hanjabaada layso hanjabaa qoraala layso qoraa يعني محاها وحوي لم أخبركم تلفوننا اللي يقصوا قراءة تلفوننا مرنا ما يشيقن فيسبوك يدير كل ما وداقن ما عرنا محاها بالباس يعني هنشبادو مالك كلا دوان يعني محاها هنشبادو يعني أي ماذا قرالو هنشبادو عدد هنشبادو تلفونه هنشبادو إيميلو هنشبادو أي ماذا قار يقولوا وين كدلنا سيدنا صمينا أحنا صمينا أحد كلب يحوي سيدنا وحوي وان دقيستا دكتنا كدقيستا دكتنا كسيدايا وحوي يعني إذا لما وداعين رنتي حقيقة إذا لما وداعين عاونا ما نشعرنا إذا وداعين ما قرشيسين لكن واحد إذا شيء حوي وح يعني ويرنا عاصو هراء ونوعية كالدوان لها أي فشل مي وحامنا مسنا هبا وحوي وحيابا كلو أي ملاقيين ولكن قدرة الربي أو ود الربي أي توجسي يعني آيات شرطي لأنه هو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويدق ريان حمام بي ملاقيان إلهينا هو خير بو ملاقيا ملاقيا إلهي ملاقيا ما سيدا وإلهي خيرك ووضع أيام ما تربي أيا ونكسن وخيرا سيد إلهي ما قو إلهي لما قين أيام ما خير كوكوتشرا أستغفر الله هذا هذا سي خلدان تفسير كذا وبحيي مركا وحويان ورنو عاصا أيام هاي بدنا وشري مركا مانتا مركا وحقاري ور كودي دتكاسي إن فيسبوكي يو مقعيدة هاي اسكو دايان إن مقعيدة هاي بدلان أو أي أديك سدان مقعيقة مركا وحوي وحكمر يابان لي صاحب ريال وحكمريا المياليه وجوه سيسي أبو كمريا تصرف كاسي مياليه وجوه سيسي فلين ماذا أيو كمريا من أقول يسندونا إن شاء الله بإذن الله الكريم
arrimo badan oo aan facebookayga kusii ilaaliyey baa jira ilaala rabbi oo kow ka ah ilaala aan ku ilaaliyo waxa ka mid ah biidn illah aslan ba waxa weeye isbedel kastoo dhaca yani muxuu ahaay qofku passwordka si fudud ku bedeli maayo arrimo badan oo aan ka horreysiyey ba jiro aan doonay halkan ka sheego haddaan ka sheego waabayna dhegeysanayaan baad doonaan bal live-ka caawa ay kula jiraano waabay ina dhegeysanayaan markaa u sheegmay laakiin qaabab aan ku ilaaliyey ayaa jira oo muxuu ahaay yani hadday isku dayaan ay ku fashilmayaan marka insha allah way satafshaluun waad fashilmi doontaan kuwa isku dayaya facebookayga inay furtaan waxaa horreeyey labadii bilood ee ugu dambeeyey saaxiibeel waxaa horreeyey in magacyo la samaysto waxa weeye طريقة أطفالية وطفولية وقاب عرورات baa ku jira dadkan muxuu ahaay waxa weeye farsamada ka khaldan xitaa waxa weeye facebooka magaca cabdimalik muuse coldoon waa la samaysan karaa cabdimalik muuse coldoon waxa weeye magacyadii sidii aan u qoray xitaa facebooka pagekayga profileka sida u qoran yahay baa muxuu ahaay ay u qoreen markii qaar ay muxuu ahaay waxaas u socon waayeen waxay sameeyeen inay muxuu ahaay dadka ay igu jiro oo dhan oo aan u malaynayo dhowaan in 2 bilood ka hor aan furay dadka saaxiibadeeda igu jira inay arkeen markaa ku darsadeen waxa weeye ku darsadeen waxaan ahay cabdimalik weeye sidan cabdimalik baan ahay kii hore iga xidhmay ka saas oo kale muxuu ahaay ayay sameeyeen intaa way dhaafeen waxay sameeyeen lacag bay ku bixiyeen waatan muxuu ahaay marka doonaysid in pagekaaga uu la xayeysiiyo pagekaaga inuu gaadho dad badan inuu gaadho waxa weeye lacag baad bixinaysaa waxaad ku shubanaysaa $5 $10 lacag 20 lacag baad ku shubanaysaa lacagtaasi lacag kasta marka sii badato dadka ay ku gaadhayso pagekaagaasi ama videogaas ama sawirka ama qoraalka aad xayeysiinaysid ayaa wuxuu gaadhayaa dad badan meelaad beegsanaysaa dad Afrika jooga dad halkaa jooga dad dal hebel jooga yani fi'a mustahdafa cumrigaas leh yani ayaad beegsanaysaa marka waxa weeye lacag bay ku bixiyeen anigu facebookayga ama ha noqdo ka shakhsiga ah aan ka soo bilaabay asalka iyo ka pageka profileka iyo pageka mid kastaba ha noqdee weligay $5 $2 $1 kuma bixin yani muxuu ahaay waxa weeye inuu gaadho ay dadku like taabtaan ama ku darsadaan yani waxa weeye waa go'aanka dadka ka soo baxay maaha mid aan ku ololeeyay aan idhi soo gala halkan oo muxuu ahaay bartan ii wada oo halkan ii taabta oo halkan la ii dhigo oo halkan iyo muxuu ahaay saas ma samayn laakiin waxa weeye waa mid ay dadku muxuu ahaay iyagu jeclaysteen inay aan ka wada xidhiidhno oo ay arkaan waxyaabaha aanu soo dhigayno waxyaabaha aanu ka hadlayno waxyaabaha aanu qorayno jazaakum allahu khayr ilaahay khayr ha idinku abaalmariyo barakallahu fiikum waan ku faraxsanahay runtii in aad halkan aad xidhiidhka aad timaadaan oo aad ii timaadaan oo aad badataan lafteeda waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maaha mid aan muxuu ahaay mooganahay oo ila yar waa mid ila weyn xaqiiqatan marka waxaan ka wadaa anigu facebookayga maan samayn lacag kumaan bixin marnaba yani in like la taabto pageka iyo in video aan soo geliyey muxuu ahaay aan lacag ku bixiyo si uu u gaadho dad badan maan samayn marnaba ma samayn marka facebookyada beenta layga sameeyey qaar baa aan arkay oo lacag lagu bixiyey marka maxaad ka filanaysaan qofka lacagta ku bixinaya facebook aanu lahayn ee cabdimalik sheekh muuse coldoon magaciisa ku qortay oo lacagna ku bixinaya si uu idiin soo gaadho oo dad badan ay like ku taabtaan ijaab ay u sameeyaan maxaad ka filanaysaan qofkaas waa qof xumaan maagan oo wax la soo socda waxa weeye alhudu qabla alcaasifa waxa weeye waxba waa imika xaaladdu way degan tahay quyar buu soconaya xumaan faafin maayo weerar waxyaabaha cabdimalik ka duwan oo dhan faafin maayo waxyaaba aad u maleynaysaan inuu cabdimalik faafiyey ayuu faafinaya ha dhowto marka aad rumaysataan inuu cabdimalik yahay oo aad like-ta u badisaan uu gaadho muxuu ahaay inta uu doonayo ayuu bilaabayaa suntii iyo ciddii soo diratay yani kolley waxa weeye anigu mabaadi' baan aaminsanahay mabaadi'daana yani haddaad ku aragtaan qoraal ahaan haddaad ku aragtaan ogaada mabaadi'dii aad igu ogeydeen in wax iska bedeleen oo ay isbedelkaas uu yahay isbedel facebook aanan lahayn bas laakiin aan cabdimalik isbedelin maalinta aan isbedelayo cod baan muxuu ahaay soo sheegayaa waa haddii aan isbedelayo isbedeli maayo marka waxa weeye yani waxa weeye marka waxa weeye qofkaas soo lacagta ku bixiyey qofka lacagta ku bixiyey facebook aanu lahayn oo cabdimalik muuse coldoon magaciisa qaatay wuxuu soo wadaa
جبو صودا لكن كيد كيسو ضعيف إن شاء الله سيدا شيطانكو كيد كيسو ضعيف وياهي مكر كيسو هوي ضعيف وياهي أصحابتها سوق لي سيم كنا وحوي أنا سي وضي موضوع وحن لسه ثيني دتك إمك دوانها سوق لي دقيقة ضمبه سوق لي برامج كان توس كاه قرن إن فيسبوك دبتانو بحي مجيسة waxaan kaga hadlayaa facebookyo magacayga oo la furtay oo aanan lahayn oo been abuura inaan bayaamiyo isla markaana ka dhabta sheego insha Allah waxa weeye sidoo qoran yahayna waxa weeye iga suga saacadaha soo socda anigu aan soo diyaarin yani muxuu ahaay sida u gali lahaydeen yani markaad galeysaan www.facebook.com حريتين يوحل لغو قري هلك لغو كلا بحيا وانتاس وانا براوسر كغشان متصفح انك كغشان هلكا سد كو اوغانيسان ميد كاستaba waxa ku qoran kayga dhabta aan live kan kaga jiro caawa maxay qaada oo maxay hadii aad u qaado oo geey maxay bay aad geeysan browser gaaya maxay tatbiiqan application kan Facebook waxa laga yaabaa in ma soo saaray laakiin geey maxay mutasafihaadka sida maxay kuwa adeegsataan yani maxay idin kala magacaabina waxyaabo kala dambe adeegsataan yani Google Chrome ka adeegsataan waxa adeegsataan صفحاتك معها وين لا تاكو انا adeegsan jiraan aniga laftayda bilaawe kaas maxay aan soo xasuustay marka mutasafihaas ama browserada kala duwan eega oo maxay aan soo qori doona insha Allah kan live ka ku ogaada oo ku wixii soo haray oo dhan maxay ka hara يعني دخل دينا كهرة وأوجادة دي هذا دون تان لصعده لكن ده سكو أوجادة واي وحن كجتشرا لايف عوا لبا ميلود بان كجتشرا هل كانوا حن كجتشرا قيب كان كجتشرا وحوي موبيل كيجا أو قيبتها معي بروفيل كيجا فيسبوك كجتشرا هل كان معي يسوونه ايباد كيجا وحن كجتشرا بيت كيجا ين كجتشرا marka labada meelood boo caawan soo galay si aad ula socotaan qolo kasto ila maxay la socotaa say u ogaato oo sida gaar u ogaato barakallahu fiikum mayhi anigu qofkii ugu horeeyay la samaysto magaciisa la adeegsado yaa rayt hadii maxay magaca si sax ah loo adeegsanayo wajiraan maxay dhici karaan dad maxay haday doonaan niyad sami u adeegsan kara inay tusaalahan qaar baa waxa weeye ay ku muujiyaan taageero ay ku muujinayaan tusaalahan taageero yani ay oranayaan taageerayaasha yani Abdi Malik Musaal doono kale waan arkay page-ka oo laga yaabo dadkaas oo kale yani inay yihiin maxay dad niyadsan oo ay doonayaan maxay aham shay waxaan doonay dadkaas waxay kaga duwan yihiin kuwa kale taageerayaasha waxay ka hadlayaan waxa weeye qof kala sameeyay oo ka hadlaya isu soo ururinaya dadka u arko inuu taageerayaal Abdi Malik u yahay laakiin qofka sameeysta Abdi Malik Musaal doon waa qof yani maxay xumaan maagan kuwa laftooda yani maxay soo qoray taageerayaasha iyaga laftooda ma ansixinay halkan caawa ka ansixin maayo ilaa aan hubiyo oo aan hubiyo cid ay yihiin iyo kuwa yihiin iyaga laftooda yaanan maxay idin hoosaasin oran wallahi waxa weeye kaasho Abdi Malik waasu saxay maxay kuwa laftooda maxay sixi maayo waxa weeye Allahu a'lam waxa weeye waxa soo socda waxa aan barnaamijkan tooska kaga jirnaa aan jooga ku suganahay maanta caawa waxaan ku suganahay magaalada Burco magaaladan aadka u jecelahay magaaladan adduunka ugu jecelahay magaalada oo sidii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka u jeclaa ayaan u jecelahay runtii waxa weeye meel kasta aan kaga maqanay magaaladan waxa weeye waan u soo xiiso gaara waan jecelahay inaan caalamka oo dhan maro tago soo noqdo laakiin waxa weeye aakhirka waxa aan jecelahay inaan caga dhigto magaalada Burco waxa weeye waa gariisa waxyaabo iskaga jiro basharka oo meesha ku soo barbaaray iyo magaaladiisa iyo iskaga jira waxa weeye magaalo kasta waxa weeye waxaan jecelahay inaan xogaa soo joogo danahan leh soo fushado arrimahan u tagay soo dhamaysto kadibna aakhirka maxay ku soo noqdo برو عيان شوقا عاوا إن شاء الله بإذن الله الكريم لايف لبعض بندوني أنا قالوا يدين شيء لايف لبعض بعض هاي وديار جروبي دونتان موضوع كدون مركب حوي كان سوه الرئيسية كدبنا هاي لايف كدم بيعمل توس كدم أنا يعني إلى الصعدة موضوع يدين شيء معي وموضوع كدون موضوعا مركب حوي دقيقة ضيق كدب
ayaan muxuu ahay geli doonaa. waxaan kusoo ama hoosta ka xariiqayaa oo aan kusoo gabagabeynayaa inaan mar labaad aan sheego facebookayga dhabta ayuu yahay kan liveka marka waxa weeye haddii aad live aragtaan kaan soo geliyo kayga dhabta waxa weeye livekana insha allah waxaan doonayaa inaan meel sare dhigo oo mar kastoo pagekayga la furo ama profilekayga ka shakhsiga la furo in lagu arko qof kastaba uu ku arko xagga sare uu ku arko uu yidhahdo Leylo Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon mar haddii uu live soo galay. dadka kale ka codsada qof kasta ka codsada oo magacayga qorta waxaad ka codsataan haddii aad Cabdimalik tahay caawa ama dee yani soo gal live hadduu qofkaasi soo galo toos mubaashir idan waxa weeye qofkaasi waa isaga Cabdimalik haddii kalena waxa weeye been ayuu idin sheegaya. waxyaabahan arka oo kale waxa weeye waxyaabaha runtii aadka aan uga xumaadayna waxaa ka mid ah dadka magacayga muxuu ahay samaystay waxaan arkay iyagoo leh qofka doonaya muxuu ahay inuu walba kaalme kuwa nagala qayb qaato inuu yani muxuu ahay walba halkan soo qoran muxuu ahay nala soo xiriiri karaa yani muxuu ahay waxa weeye taasina waxa weeye waxay muujinaysaa in barnaamijka kaalme kuwan ay doonayaan in si khaldan ay u adeegsadaan. barnaamijka kaalme kuwan waa barnaamij yani la dul tagayo dadka dhiban oo dadka dhiban iyagu hadlayaan isla markaana xiriirkooda tooska iyaga la qorayo loo leeyahay waa kaas hebel iyo telefoonkiisa la xiriira mu ahayn mid si gaara annaka aan la soo xiriirayay waxa weeye xiriirkaygu aan ku qorayno markastaba annaka waxa faahfaahin dheeraada inaan muxuu ahay dadka yani muxuu ahay faahfaahin ka siino laakiin qof kasta waxaan isku daynay haddii aanu helayno telefoonkiisa inaan muxuu ahay telefoonkiisa xiriirkiisa qorno haddii aanu helayno haddaanu qofkaasi muxuu ahay xanuunsanayo aanu bixi karin in ehelkiisa qofka ugu dhow iyo telefoonkiisa aanu qorno daa'iman waxa weeye dadka wax bixinaya iyo kala siinayo ayaan u kala baxnaa haddana kaalme kuwan marka waxa weeye saasuu muxuu ahay ku socdaa barnaamijka kaalme kuwan haddaan isagana muxuu ahay barnaamijkan aan idinkaga faa'iidaysto aan idin sheego isaga waxaan wadnaa ballaarin baan wadnaa barnaamijkii maadaama uu muxuu ahay burco ka bilaabay oo muxuu ahay dad aan odhan karin way badan yihin laakiin dad tira ay ka faa'iidaysteen waxaan go'aansanay inaan muxuu ahay deegaamada Soomaalida gaarsiino meel kasta oo insaanka Soomaaliga joogo maadaama insaanka Soomaaliga uu yahay ka lacagta laftiisa soo dirayo yani aanay ahayn farq aan u dhaxayn Soomaalida laakiin aan gaarsiino balballaarino laakiin barnaamijku mar qura uu ka shaqeeyo muxuu ahay gobol kasta oo Soomaali joogto iyo insaan kasta Soomaaliya oo dhiban oo xitaa dabadda jooga inaan muxuu ahay la shaqeyno ayaa barnaamijkaasi muxuu ahay ku salaysan yahay insha Allah isagana arrimo badan oo ku saabsan barnaamijkaas waxa weeye saacadaha soo socda ayaan muxuu ahay faahfaahin idinka siin doonaa. waxa aan la socodsiinayaa saaxiibadayda iminka idaawanaya tooska idaawanaya iminka soo galay barnaamijka muxuu ahay soo galay iminka waxaan la socodsiinayaa in aan waxaan u sheegayaa facebookayga dhabta ahi waxa weeye waa kan aad iminka liveka aad u daawanaysaan maaha mid aan odhanayo Cabdimalik Muuse Coldoon sababtoo Cabdimalik Muuse Coldoon dad badan baa furtay waa kan iminka sababtoo la bedel isla magaca wala furi kara waxaan laakiin la furi karin meel aan idin sheegi doono iyadoo qoraal iminka aan idin sheegi doonin idin sheegi karin oo aanan soo diyaarsan meel muxuu ahay cinwaanka dhan URL-ka aad copy garanaysid oo aad geenaysid browser geenaysid isla markaana aad ogaanaysid cinwaankan wuxuu yahay dhabta aad ogaanaysid waxa soo baxaya www.facebook.com xariijin iyo magaca marka kaygan qaado waxa weeye halkaas geeya waxaad ogaanaysaan uu yahay marka waxa ku qoran Cabdimalik Muuse Coldoon xiriir leh xagga page-ka xagga kale ee profile-kana waxa weeye sindibaad ayaa ku qoran oo af Soomaaliya marka iyadoo qoran baan muxuu ahay idin soo qori doona insha Allah iyadoo qoran ay idin soo qori doona taan ku kala baxayna dadka waxa weeye waa taas oo qoran iyo live-ka labada shay ayaan ku kala baxayna si kale oo aan dadkan muxuu ahay ku kala baxayna ma jiraan waxaan idin sheegayaa oo kale dadka muxuu ahay aan nala socon in ay uu bilaabmay in facebookayga muxuu ahay isku dayana passwordka laga bedelo oo emailka laakiin aan ku ogaado inuu qof isku dayay muxuu ahay inuu bedelo oo yani jabsado marka siyaabaha dadka uga jabsadaan be istihbaalku ku jiro xogaa yaro yani muxuu ahay caruurnimo yani nacsinima ku jirto qaab yaro nacsinima ku jirta israadaan u jabsado يعني لكن هو سورة قلي ويدي ولله الحمد لله مهدي وي بفضلي لكن هو إيميل كذا شيء يقول لي ماذا ميتوقع يسكتي إنه يعني بدل باسورد ما دقام ما
anigo miskiin ka yar baan ahay maxay ka rabaan anu garan maayo miskiin ka yar warada Facebook ay gaaraan dad kala xiriiray daayadi maxay ka rabtaan adeero hawlina iska furto idinkuna Facebook samaysto insha Allah way like tuna ilaahay idin badiyo ii daaya Facebook-ayga billahi alaykum iska ka daaya waxa weeye Facebook-ayga maxaad ka rabtaan saaxiibayaal haddaba intaasan kaga baxayaa Facebook-ayga dhabta ayaan doonayaa inaan sheego intaasumaan kaga baxayaa daawashada la daawanaysaan waxa weeye waxaan mar dhow galayaa live kale saan idin sheegay live kale ayaan galayaa imika waxa weeye 30 daqiiqo daawanaysaan iyo 20 ilbiriqsi waxaan galayaa insha Allah toos kale ayaan galayaa toos kale iigu diyaar garooba iyo mowduuc kale ha iga tagin idinka laftiinu mowduucan baan doonayaa inaan kala jarno videoga saan noqon hal video haddii aan mowduucan Facebook dhabta aan ku ilaawayna waxa weeye gadaal baan ka soo sheegi doonaa imika waan soo xasuustay waxaan doonayaa idin sheego barakallahu fiikum xiriir yani dad aanu isweyne xiriirkayga Facebook ay soo dira waraaqo Facebook-ana waxa weeye khaasatan page-ka waxa weeye waxaan joojiyay isagana 2 sano ku dhawaad ayaan joojiyay mail sanadiyo imisa bilood sanadii waxaan noqonaysaa 6 bilood ka hor ayaan xamili kari waayay in aan dhammaan fariimo dhan ka jawaabo sababtoo waxa weeye يعني بقول بس وضع يا فريمو يعني وعدك تاين مالك استفريمها صدنا خريدت يعني أضو شقة كلا هي وحكي لك شقينا هي وحصودو يا برنامج صودو بيا الرماها كلا الرماها دنيوي وكشقي سنة يا برنامج كي تشرشر يا بينا يا كدي من محماية وحوي الرماها كلا متابعين يا لسعوني وعدك تاين لما إن قفك أغلى تقول شراء ورنا هي محماية فريم أن آدو مهم هين مركز قاركود سوقرية تذكر قارو حوي مركز قارو حي سوقري كران يعني وحكي قرنا يعني محماية السلام عليكم بقولين كلية قار أرن يعني ربا أي كاله هذين جادة ورونا سيريس بكاله هذين قفنا حقنا يسكورن بوقف كسكورن يا ما في عنتها هاي سياتها هاي يعني ما أنتوا أردن سياتها هاي كم شواب كريسيت وعوي تدكم وين لاي وين واحد كتش على متشرين وقف كستبس سلاد قناع لكن هدان سلاد قناع كل جود هدان سلاد كتشواب وعوي هولا هي لا ياد كانية أي وقت بان واي هدان سلا فريمة وأنا وذي كلا فريمة كتشوف لكن وحبا ما قبلنا يوم مركا وحوي وين يعني هاي إنه فريمة قارو كتشوف بين غنيسة مركا يعني وحبا ظلمي يو أي غنيسة مركا إيميل بان إن شاء الله هاي أن إيميل هذا إذا أن سوقره أيام هاي ينغنية تدكو إنه يجلسوا حيران كاسة دي يجلسوا حيران iyo waxaan doonayaa inaan page-kayga u sameeyo mudiir maamule admin baan doonayaa inaan u sameeyo waxa weeye waxa ka mid noqonaya adminadaas saaxiibkay Xasan Yuusuf Xuseen Xasan Mataan aan Facebook-giisa inaan sidoo waxa weeye ragga admin ka noqonaya oo yani waxa aan doonayo iyo siyaasaddan ku shaqeeyo soo dhigi doono page-kaygan ka shaqeynaya maadaama hawlaha ugu badan yihiin isaga ayaa fariimaha insha Allah wuxuu ka jawaabi doona isaga ayaa idila hadli doona sidoo kale WhatsApp baan idin soo siinaya lambar WhatsApp baan soo siinaya WhatsApp kana waxa weeye adminan u dhiibaya insha Allah maamulayaal mudara ayaan u dhiibi doona insha Allah waxa weeye ka kuwaas la xiriir doontan iyaga idila hadli doona xaqiiqatan waxa weeye arrinka saasu dalbanaya si ay noqoto sababtoo dad badan ba oo adudan caawa live ku jira aad u dhibsaday xiriirkayga karaahiyeystay xiriirkayga waxa weeye balaab waxa weeye arrin muhiim ay doonayay markii dambe niyad jabay oo waayay oo si kala sameeyay marka dadkaas oo dhan iminkaan soo socdaa yani waan iskala habeyn baan ayaan wadaa runtii waxa weeye barnaamijkii kaalme kuwan iyo arrimihii warbaahinta ayuu baan nala ballaadhay oo wax yar ahaa iminka dee maraya ballaadh marka ballaadhkiisa inaan annaguna la ballaadhano ayay noqonaysaa marka waxa weeye Viber-ka waxa weeye xiriir baan ka soo sameynaya yani baraha bulshada oo dhan waxaan sameynaa dhalinyaro maamusha oo idinla xidhiidha oo يعني مثليسة أو فرينت مركبة ذيك قبنيسة عبد الملك مساعد أنا يو كلا بيني وشقوينك كلا قبنية صاحب ذي بيو بدنانا يان أرمي كواني مكان معابية نمبر 1 وحسن يوسف حسين حسن متان يوسف إيميل كوجو قران فيسبوك أو قران لا هاي مركان إن شاء الله ونصور دي قدونا صاحب غالية هرجيسي مكوسوين هاي لكن إن شاء الله وحوي سجى أبديت كرين دونا بيسكا جورت حسن
وتحديث isaga goortaasina waxa weeye isaga muxuu ahay dhawaan bay insha Allah noqon doontaa باذن الله الكريم iminkana waxa weeye waaniga yidhi waan ka baxaya waxaan ka soo xasuusto barnaamij Facebook ee dhabta xiriirka dhabta iyo waxyaabo la xiriiro live kale haday aan u baahdo waan soo gali doonaa laakiin iminka intaas ayaan muxuu ahay ku soo gabagabeynaya live kalena toos kale mowduuc kalena waan galaya isla caawa marka ha iga tagina ha fogaanina koob shaaha caba weyn wada joognaa caaweysin wanaagsan habeen wanaagsan Cabdimalik Sheekh Muuse Aldoon oo ku sugan Burco oo dile assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad kala socoteena page-ka boga iyo ka shakhsiga ah profile-ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودم وايه به مين قدم يا وايه بدي كل هذا شيء كذا ها والحق هو هاي بريهم بمين الحق هو سا يكون قنات فينش